السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxay ahayd 7 Oktoobar 2001 maalinkii ciidamada Mareykanka ay ku duuleen dalka Afghanistan iyagoo hadafkoodu yahay ciribtirka ururka Taliban 20 sano kadib ciidamadii Mareykanka ayaa ka soo cararay kadib markii ay Taliban la wareegeen dhammaan dhulalka Afghanistan sidoo kale iyaga hortooda intii u dhaxaysay 1839 ilaa 1919 boqortooyada Ingiriisku waxay Afghanistan ku qaaday 3 dagaal iyagoo mar walba la laabanayay guul darro iyo jab aad u daran si lamida sanadii 1979 waxa Afghanistan ku duulay midowgii Sofiyeetka kadib 9 sano oo kaliya waxay ka soo baxeen iyagoo wajahay qasaarihii iyo jabkii ugu xumaa ee ay suureysan kareen haddaad eegto dalka Afghanistan ma ahan wadan quwadiisu ciidan ay xoogan tahay ma haystaan teknoolajiyada mideeda ugu heerka sareysa ama hubka kuwooda ugu casrisan haddana sidee ku dhacday in afka ciida ay u daraan 3 dawlad oo kamida dawladaha ugu quwadda weyn dunida casriga maxaa sababay in 20 sano kadib dawlad isku sheegtay in ay tahay number 1 ay awoodi weyso iska dhicinta urur aan haysan hubka ugu casrisan dunida dabcan su'aalahan waxa looga jawaabi karaa siyaabo badan balse haddaan ku bilowno sababka asaasiga ah ee reer Afghanistan looga adkaan waayay ayaa ah in aynan weligoodii kali ahaan oo xilli walba marka ay dagaalamayaan waxay garab ka heli jireen dawlado shisheeye tusaale goortii midowga Sofiyeetka uu isku dayay qabsashada dalka Afghanistan intii u dhaxaysay 1979 ilaa 1988 hay'adda CIA ee Mareykanka iyo wadamo ka tirsan dawladaha khaliijka ayaa si joogto ah u hubeynayay xarakadii mujaahidiinta ee Afghanistan intii uu dagaalka socday midda oo soo dedejisay qayb lixaad lehna ka qaadatay jabka aadka u xumaa ee Sofiyeetka qabsaday xilliga taasoo la micno ah in Sofiyeetka uu la dagaalamayay kooxdaha gadaashiisa ay ka caawinayaan kuwa kamida wadamada ugu quwadda weyn ee dunida sidoo kale kadib 20 sano oo Mareykanka iyo xulufadiisa ay la dagaalamayeen ururka Taliban ayaa idna ku soo dhamaatay jab ba'an oo soo gaaray Mareykanka kadib markii Taliban ay si kedis ah kula wareegtay dhammaan dalka Afghanistan maalinkii Axadda ahayd ee 15 Agoosto xaqiiqatan maantayna arinku sidii hore oo kale ayuu la mid yahay oo habkii Mareykanka uu u hubeynayay xarakadii mujaahidiinta ayaa wadamo badan ay u hubeynayaan ururka Taliban Mareykanka iyo xulufadiisa ayaana ku eedeeyay wadamada sida Iran iyo Pakistan in ay gacan weyn ku siiyeen ururka Taliban la dagaalanka Mareykanka si lamida intii u dhaxaysay 1839 ilaa 1919 boqortooyada Ingiriisku waxay Afghanistan ku qaaday 3 dagaal mid kasta oo kamid ahna waxay ku wajaheen guul darro iyo jab aad u daran labadii dagaal ee ugu horeeyay boqortooyada Ingiriisku waxay rabeen inay Afghanistan qabsadaan ka hor inta Russia ayna gacanta ku dhigeen iyadoo dad badan ay tilmaameen in reer Afghanistan ay garab ka heliyeen dawladda Russia ee xilliga inkastoo dadka qaarna ay diideen dagaalkii saddexaadna waxay taageero buuxda isugu jirta saad hub iyo ciidanba ay ka boqortooyadii Cusmaaniyiinta taa oo keentay in Ingiriiska uunan awood u yeelan qabsashada Afghanistan ayaa dhacda mowqic istiraatiiji ah marka laga eego xagga danaha siyaasadeed maadaama ay isku xirto bartamaha iyo koonfurta Aasiya ilaa iyo bariga dhexe taasoo keenaysa in dawladaha galbeedka ay ku dadaalaan sida ay saameyn ugu yeelan lahaayeen mowqican saadaradeed mar walba oo mid kamida quwadaha ugu waaweyn dunida ay isku dayaan in ay dagaal ku qaadaan ama saameyn ku yeeshaan dalka Afghanistan waxay ka hor yimaadaan dalal kale oo iyagu dana siyaasadeed ka leh Afghanistan ama ka soo horjeeda in dawladdaasi ay saameyn ku yeelato bartamaha iyo bariga dhexe Aasiya dabcan inkastoo macquul ay tahay in Afghanistan lala wareego ciidamadoodana lagaga adkaado dagaal furan haddana waxa aan macquul ahayn in gacanta lagu sii haayo wadankooda kaliya waxaad eegtaa mowqica juqraafi ee Afghanistan ugu horeen waa wadan xaniman oo wax bada aan lahayn taa oo ka dhigaysa mid ku adag dawladaha shisheeye ee duulaanka ku Afghanistan in ciidamadoodu si fudud ay halka ku geeyaan waxayna ku qasban yihiin in ay adeegsadaan dawladaha dariska ah si ay ugu suura gasho in ciidamadooda ay galaan gudaha Afghanistan xitaa hadii ay suura gasho galida gudaha Afghanistan waxa ka horeeya dhul aad u adag buuro dhaadheer iyo waliba cimilo ay adag tahay in ay wajahaan ku dhawaad 75% dhulka Afghanistan waxa daboolay mid kamid ah silsiladaha buure ugu dhaadheer uguna xajmiga weyn dunida ee Hindu Kush taa oo ka dhigaysa Afghanistan mid kamid ah wadamada ugu xaniban misna ay adag tahay in si fudud la isaga dhex goosho sidoo kale buurahan aadka u waaweyn ayaa ururada Afghanistan sida Taliban oo kale u ah dhufaysyo ay kaga gambadaan ciidamada shisheeye ee ku soo duula oo hadii ay dhacdo in ciidamada shisheeye ay ka soo gudbaan xuduud Afghanistan waxa qasab ah in ay mariyaan sahaydooda iyo ciidamadooda wadooyinka ciriiriga ah ee buurahan taa oo ururada halkan ka dagaalama siinaysa fursad cajiib ah oo ay ku gaadi karaan ciidamada shisheeye misna baaba kaga dhigi karaan midda oo xanibaysa isku socodka ciidamada muddo aad u dheer xilligii ay Sofiyeetka ku soo duuleen Afghanistan halista wadooyinkan kuma aynan baraarugsaneen balse ururkii mujaahidiinta ee la dagaalamay
dagaalamayay si wacan ayay uga warhayeen muhiimadda wadooyinkan, iyagoo inta badan marka ciidamada Sofiyeedku ay halkan marayaan ku qaadi jiray weerar gaadma ah ku dhufoo ka dhaqaaq oo ay ku baabi'een kumanaan ka mid ah ciidamada Sofiyeedka. Haddana isla markiiba waxay ugu dhuuman jireen godadka buurahan adiga maaba arkayba. kaliya in ururadan dhowr wado ay gacanta ku dhigaan ayaa u suuragelin jirtay la wareegidda magaalooyin ama xitaa gobollo dhan. Kadib markii ciidamada Mareykanka ay halkan ku soo duuleen, waxay la yimaadeen istiraatiijiyad cusub iyagoo isku dayaya in ay ka fogaadaan wadooyinka ciriiriga ah ee buurahan. Waxayna inta badan sahayadooda iyo ciidamadooda u adeegsan jireen wadada Khaybar ee dhexmarta xuduudda Afghanistan iyo Pakistan. Wadadan oo ah mid si fudud ay ugu tagi karaan xerooyinka ay gudaha Afghanistan ku yeesheen. Balse tacajiibka badan waxay ahayd in Mareykanka uunan keligii wadadan adeegsan jireen ee xitaa ururka Taliban iyagu laftirkooda way adeegsan jireen oo hubka iyo sahayda ciidan ee Pakistan looga keeno halkan ayaa loo soo marin jiray. Almuhiim, ururka Taliban waxay ogaayeen muhiimadda wadadan ay u leedahay ciidamada Mareykanka iyo qataraha iyaga kaga iman kara. Ugu dambeyn sanadii 2009 ayay qarxiyeen buundada isku xireysay labada qayb ee wadadan oo joojisay isticmaalka Mareykanka ee wadadan. Sidoo kale, qaab dhismeedka dhulka Afghanistan waxay kala qaybisay dadiyowga halkan ku nool, maadaama ay ku hareeraysan yihiin silsilado buuro oo aad u waaweyn, misna aynan jirin wadooyin fiican oo ay isaga kala gooshaan, ayaa keentay in ay adkaato isdhexgalka bulsho iyo jiritaanka midow siyaasadeed. Qolo kastaaba waxay isku haysataa in ay gooni u taagan tahay oo dhaqankii hoggaan qabiileedka ay wada haystaan badinkooda. Middan oo sababtay in dowladda maxalliga ah ee Afghanistan ay ahaato mid daciif ah oo aan gacanta ku hayn dhammaan dhulalkeeda, taa oo dhanka kale aad u saaciday ururka Taliban oo iyagu gacan saar la leh in badan oo kamid ah madaxda qabaa'iladan, misna ka hela caawimaad joogto ah oo isugu jirta hub, sahay iyo weliba goobo ay gabaad ka dhigtaan. Sidoo kale, in badan oo dadka qabaa'iladan kamid ah waxay jecel yihiin ururka Taliban in ay mar un hogaamiyaan, taa oo dhacday maanta. Inkastoo marar badan ay dowladaha shisheeye isku dayeen in ay dhisaan dowlado maxalli ah oo ururka Taliban la dagaalamo, misna bulshada dhexdeeda la isku furo si looga saaro gooniga ay ku jiraan loona helo midow bulsho, haddana ilaa maanta la jooga qaybo badan oo kamid ah bulshadu waa sidoodii oo isbedel weyni ma jiro. Dabcan dhammaan arrimaha Afghanistan waa kuwa aad isugu qasan, mana jiro hal sabab oo asaasi u ah in ay adkaato gacan ku dhigisteeda. Ee taa cagsigeed, waxyaabo badan ayaa sabab u ah oo ay ugu horeeyaan qaab dhismeedka dhulkooda, kala qaybsanaanta dadkooda, maamulada dowladeed ee aan waxtarka lahayn iyo faragelinta joogtada ah ee wadamada shisheeye. Almuhiim ma ahan wax lagu soo koobi kara muuqaalkan aadka u yar. Hadeertan waxaa dhammaan wadanka gacanta ku dhigay ururka Taliban. Alla ayaase og waxa dhici kara muddada soo aadan, in wadanka mar kale uu ku laaban doono wadadii hooga iyo dagaalada joogtada ahaa, ama in ay ka soo kaban doonaan taariikhda madow ee 40kii sano ugu dambeeyay ay wajaheen. Waxaan Alle ka baryaynaa in uu noo wada hagaajiyo dhammaan wadamadeena. Halkan ayaan kaga baxaya muuqaalkan. Waa inoo muuqaalka kan xiga. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Amaana Allah.